dadka Soomaaliyeed iyo nidaamka qabiilka marna ma kala maqnayn. haddaad raadraacdid bulshada Soomaaliyeed waxaa sal iyo baar u ah qabaa'ilada ay ka soo jeedaan. qabiilka ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyaa doorka taxanaha ahaa ee uu dagaalada ka qaatay. haddaba si loo heshiisiiyo bulshada iyo qabaa'ilada Soomaaliyeed ayaa waxaa la hirgeliyey nidaamyo kala duwan, waxaana nidaamyadaasi ka mid ah nidaamka awood qaybsiga ee 4.5 loo yaqaano oo ka kooban 4 qabiil ee ugu waaweyn iyo qabaa'ilada kale ee soo weheliya oo barka soo harayo la iskugu wada geeyay. dawladda hadda jirta iyo mas'uuliyiinta dhaqameed nidaamkan ayay ku howlgalaan, balse odayaasha barnaamijkan ku arki doontaan waxay door bideen in qabiil kasta uu awood buuxda helo. ururka tubta nabadda iyo maxadka nolosha iyo nabadda waxay isku keeneen oo ay la shaqeeyaan koox odayaal dhaqameedyo ah oo qabaa'ilada oo dhan ka socda, mowqifyadooda siyaasadeedna ay kala duwan yihiin. annagu haddaan cadaaladda ka tagno hadda qof noo soo istaagaya lama arki ogow. kow iyo 20 sano ay dagaal ku jirta ragii maanta waxba maayo dumarkii tii jaad gato tii shaahi gato tii nyaayo gato dumarkii aa lagu nool yahay. nabadaa nagaada leh haddii meel lagu nagaadood aragto nabadaa meesha ka jirta. tan iyo burburkii dagaalada sokeeye mas'uuliyadda saarnayd qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa waxaa ku yimid isbeddello dhanka howlaha ay qabtaan. oday dhaqameedyada ayaa ka mid ah dadka waxqabadkooda ee isbeddeshay isla markaasna ay korortay iyagoo diiradda saaraya hanashada nabadda. axmed maxamed barre oo ku magac dheer macallin barre ayaa sharaxaya doorka ay odayaal dhaqameedyada qaateen ilaa iyo markii uu burburka bilowday. macallin barre wuxuu ka mid yahay odayaal dhaqameedyada Soomaaliyeed. annaga oo dalkayna u burburay dalkan magaaladan waxaa soo galay dad reer baadiye ah oo aan waxna qoraynin waxna akhrinin. dadka waxa qorada iyo waxa ay akhrinaayeen waxay sameynayaan kaliya inay wax dilaan ay tahay oo qori wata oo aan qabiil kaliya ahayn oo magaca Soomaaliyeed wata. markii ay soo galeen dee talafara waa ka baxday, dawlad kale celinaysa male, maxkamad kale celinaysa male, saldhig kale celinay male. saldhigii iyo maxkamaddii iyo jagadii oo dhan waxaa isku qaatay nabadoonka markaas meesha jooga. 20 sano waxaan ahayn baliiska dalkan jooga iyo nabadoonka jooga iyo maxkamadda joogtaan ahayn. dablay aan heebtooda laqoonba qof dishay baa la leeyahay. reer baadiye yaal oo roobda ayaa qof laga dili jiray baadiye cilla ajees yaal. markii la dilo qofkaas asbuuc ka bacdi in hebel baa dilay baa la dhihi jiray. meeshii raadna ma lahayn, markhaatina ma lahayn, mugdi bay ahayd roobda ahayd. nin baa la dilay, meel cidlaana way ahayd, waana la heli jiray. magaalada intaas Soomaaliyeed qof joogtaan baa nin lagu dilayaa. dablay aan heybtiisa laqoon baa dishay af ma ahe wax noo sheegaan ku gudoomiyaasha degmada. waxaan u dareemay qof colaad raba inuusan jirin. shakhsiyaadka ku jira dadku ka bato markii colaadu ka caysay beelihii qof walba colaadii waa ka soo horjeeda. wiilka uu dhalay qofku ku arko wuxuu leeyahay waa tuuga hal qabto, waa fidnawada hal qabto. dadkii marka colaadii waa isbedeshay, nabad bay isku bedeshay. laakiin dawladdiina xoog ma yeelan oo dawladda lugaheedu isku taagtay ma ahan. laakiin waxaa weeye odayaashiina waa ku dhex jira, ummaddii waa isfahantay. odayaal baa ku dhex jira ilaa waqooyi galbeed ilaa meesha la yiraahdo raas gamboon inta ku dhex odayaal baa ku jirta. odayaashuna waa isoo bihi. aniga waxaan rabaa dad guddi ah loo diro oo halkaas soo qabtaano warbixinteedana aan oo keenano. markii la rabo dhibaato dhacday in la xalliyo waxa la adeegsado waxaa ka mid ah ikhtiyaarta meesha joogta. iyagaa lala hadlaa, dhibaatada ha istaagtaa la yiraa. markay istaagto ayaa la yiraa marka garoonka waa laga soo degi karaa. markaasaa ikhtiyaarta la diraa, wixii dhaqaale la heli karo laga daba diraa, sidaasaa lagu xalliyaa. macallin barre ayaa sharaxaya halka uu ka soo askumay fikirka golahan ay isku kaashadeen. waxaan gogashaas u fidinay in
ayna waxba nugu tarayna 20 sano qabiil oo qabiilka intaan ka baxno aan u gudubno ee Soomaaliya qaran aan u gudubno anagoo sidaas wadno ayaan waxaan aan isbaranay tubta nabadda marka waxay noo fududaysay in odayaal laga keeno Garowe in odayaal laga keeno Garbaharey in odayaal laga keeno Dhobley seminar aan isla galno odayaashaas aan isfahanno wax isku darsano oo odayaal noqdo dhibaatadii Dhobley ka naqato itii gaalkacay ka dhacday inaan wada xalinayo ilaa iyo markii ay isku yimaadeen waxay horumar ka gaareen inay wada shaqayntooda ballaariyaan arrimo badan oo cakiranna ay dhex galaan odayaashan waxay isku yimaadaan toddobaadkiiba mar halka golaha odayaal dhaqameedyada ballaaran oo 50 xubnood ka koobanna ay bishiiba mar kulmaan waxaan isticmaalnaa horta shirira la qabtaa shirarkaas aan qabanayno marmar anaga si khaas ah u qabsano marmarna hay'adan nala jirto marmara anaga intaan shir khaas u qabsano hoteelada aan ku qabsano aan waxaan sameynaa waxaan u yeernaa TV-yaalkan u yeernaa waxaan u yeernaa idaacada waxaan yiraahdaa waxaan sheegnaa waa baahinaa marka warkayna sidii loo maqlo dadka TV-yaalkana waa fiirsadaan raadiyaashin waa dhageystaan bismillaahi raxmaani raxiim waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno xoojinta doorka dhalinyarada ee nabad dhisidda barnaamijyada nabadaynta ku salaysan oo ay odayaasha saxaafadda ka baahiyaan ayaa waxaa si joogto ah u dhagaysta koox matalaya bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa kooxdaasi loo xil saaray inay cabbiraan faa'iidada barnaamijyadaas qaybna ka qaataan sidii loo horumarin lahaa laakiin markaan muddo ku dhex jiray oo aan dhageystay idaacadihii barnaamijyada ay noo dhiibeen saameyn weyn horta ugu yeelatay marka ugu horreysa waayo problemka oo saxda oo iga maqnaa oo muxuu ahaay oo la saameynayo aan meesha ka ogaaday midda kale barnaamijyada idaacadaha ka baxo oo Beesland ay sii dayso waxaa ka mid ahaa gabayo riwaayado yaryar oo majaajilooyina barnaamijyo oo ku saabsan bulshada taabanayo markay dhageystaan isbaaradii waxay meesha ka caddaatay waxay ka ogaadeen in isbaarada shakhsi uusan dhiganin oo family dhan oo dhigto riwaayadda siday turjumayso waayo waxaa arkaysaa nin isbaaro dhigtay isbaarada markii lagu dilo nin qolo kale ay soo weerarto ama nin gaari wato isbaarada oo intoo qori soo qaato iska celiyo oo ninkii dilo familkii oo dhan meesha waxay leeyihin diyaan u qaadanayna agayaan oo dhan booskeen dhan aan diya u qaadanayna marka isbaarada horta family ay ku saabsan tahay family ay ka soo jeedaa waxaana u asal ah qof walba qutlyoonkiisa meeshaas ku jiro oo nin walbaba qabiilkaas ka tirsan wuxuu soo raadinayaa inuu meesha wax ka helo odayaasha waxay la xaajoonayaan isbaarooyinkan iyagoo dhexdhexaadinaya laba shakhsiyood oo arrintaas isku haysta waxayna doodda dhexdhexaadinta u dhacaysaa qaab gabayaysan mudanayaal iyo murwooyin kulankeenna doorka ah dantii aan isugu nimi dulucdeedu waxay tahay dulmigaa isbaarada lagu dhibo dadweynaha xaludooristeedii si loo helo dariiq iyo dawgaan u mari layn dabargoynta cudurkaa waa inaan ka doonnoo tala daawo dhalisoo dalkayaga dhammaantii isbaaradan isdaba taal degdeg looga qaado shacabkuna ku diirsado waa inaan damiirkeed dooddeeda fulinaa haddaan kaalintii dumar dareenkayga ku cabbiro dumarka waa ka mamnuuc inay dariiqa isbaaro dadka ay u dhigtaan u dabeecadna maaha dadkeennu waa og yihiin iyo dunidoo dhammi taase wax hadda uga xirtee intuu dalka hooyo dhammaan wax hadda uga xirtee dalka hooyo dhammaan intuu daadshay isbaaro dadweynihii ku gumaada waxay haysteenna ka diirta waa raggee ha iska daayo dunuubtaas ah bareer saaxiibkay dalmarow ma doodeennu ahayd daacad inaan hadlayno mase daroryaan iyo been iyo istabaalis ahayd midba haddaan daacad hadlayno duqdaas maahan cadaalad war ha nugu dhih warka ay daldalaysiiyo dembiga ragga ay saarina dulma warka horta dad hadduu isu fiirsado
waxay doonayaan iyo lama gaadha daawada isku duubni wada jiraa lagu suuliyaa dulan docda kuu fadhiistee dumarkaa sidaan iyo nimankaa dembiile ayaynaan ku daalin duul islaama baanna dariiqada isbaarada dadka loo fadhiistee maalka looga dirtay dilka sabab la'aanta iyo naxariis darraanta diinteennu ma oggola diinteennu ma oggola risqkii ka doonana kuma dogo waqiiso iimaankaa dalooshama intuu dunida joogana dulli iyo dhibaataya darxumu ku noolaan dallana ma laha aakhire haddii loo kitaab dayo wariyaa igu diidan ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عدنا هي هذيك ما شاء الله ninkaas waa dalamsade ما شاء الله runtii baa ka balowday ما شاء إلهي هداي محود ديرة صار يدوّد هذا إسبارو دوّي لو مري لا ديرية هذا شيء ما sheegay ديرية هذا شيء haye waxa loo xaldayayo waa dirciyadan dhalayo iblis duufsaday weeye wiilasha inaan ka dabibno dulligay ku jiraano bulshadana aan u danayno ha iyagana doc kale aan u jahayn ha bulshadana aan u danayno wacyi gelintu waa doore ya hawsha inaan ku dadaalo hadda aan ku dareero dadweynuhu soo mahaboon arrimaha bulshada ay odayaasha dhex galaan isbaarooyinka kuma eka waxay shirarkaasi ku wajahaan inay hal mawduuc oo markaasi taagan diiradda saaraan shirkan waxay ku falanqaynayaan dhibaatooyinka dhallinyarada Soomaaliyeed waxay iswaayeen caruurtii iyo aabahoodii waxay iswaayeen caruurtii hooyaalkoodii qaar jidkay ku dhumeen qaar si kale wax u samaysteen marka wax xanaanayn ma laha ilaa aana inta jeer waxaan ka hadalnay marka ay jirtay dawladda oo xoogeedii waxa jir meel la yiraahdo orfano cunuga aabiisa markuu dhinto ninka oo kaab qabiilka waa wada jiri kaab district uu geey jiri waa la qori jiri orfana la geeli jiri orfanaas wuxuu ku bari jiri labiskiisi wixii soo dhan laga fikir jiri marka cunug maanta haduu qado barin oo qado wax asla wixii loo diro waa yeelaya barkii baayga ku qasbaya waxaa shirarkaasi ka soo qayb galo xubnaha bulshada ugu firfircoon saameyn wanaagsanna ku yeelan kara sida culamaa diinka iyo imaamyada masaajidyada imaamyada waxay fursad u haystaan inay waxyaabihii shirka looga wada hadlay ay dadka masaajidyada yimaada la wadaagaan insaanku wuxuu xaq u leeyahay inuu noolaado si sharaf u ku noolaado ilaahay wuxuu laqad karamna bani aadama yani bani aadamka sharaf iyo xurmo ayaan u yeelanay marka caruurta bani aadamkaas ay ka mid yihiin inay noolaadaan noloshaadaas asaasiga wixii u ah oo ay ka mid tahay midaan inay wax cunaan la siiyo caafimaadkooda in laga fikiro kadibna maxay waxbarashadooda in laga fikiro mustaqbalkooda in la diyaariyo ilaa qofka yani ka weynaado oo asaga uu isaga filaadana in gacanta lagu sii haayo markuu weynaado oo asaga hore loo soo tababaray oo hawshiisa loo soo qabtayna asaga ayaa marka dambe noloshiisa sii bilaaban doona si ilmo kale asna u dhalo oo halka uga sii wado لا يستطيع أن يكون مثل الغني لأنه لا يجد هذا اللباس الغالي أما في الحج فالحاج الغني يلبس لباسا والحاج الفقير يلبس لباسا وهكذا هذا تدل على المساواة waxaan sameyn anaga hataa culama u diinna la shaqeeyaa jiro oo masaajidaha khadiibay ka ah oo aan ku wacyi gelinay oo hay'adda aan u kaashanay oo aan niray jimcaha khudbada waxaad ku soo qaadanaysaa nabadda qaabka ay odayaasha u shaqo tagi jireen ayaa sidoo kale nidaamkiisa la habeeyey iyagoo ururka tubta nabadda ka kaashanaya waa kan Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ururkaasi agaasimo ka ah oo faahfaahinaya wada shaqayntooda odayaashu markii hore waxay ku kala jireen laba xerada muxuu ahay muqaawamada iyo xerada dawladda ayay ku kala jireen markii dambe oo isu yimaadeen oo ay isfahmeen na waxay ka shaqeeyeen labadii dhinacba way ka shaqeeyeen waxay kaloo ka shaqeeyeen beelihii ay markii horeeto isu xil saareen inay nabadda gaarsiiyaan had walbana dhibaatada ay rabaan inay xalliyaan cidda ay la gasho inay u tagaan dhibaa meel ka dhacayo annagu ma nihin hataa odayaasha oo ku kooban dhinaca dawladda annaga waa baxnaa aniga hadda markaa liga soo bacaawiyo shabaab uu joogo waxaan xasuustaa waxaa jirtay mar dagaalka magaalada muqdisho oo aad u cuslaa oo jidadkii oo dhan ay xirmeen dadkuna ay dhibaato badan kala kulmeen markaas
odayaashu iyagoo wada jira ayay waxay u tageen madaxdii shabaabka ee markaasi magaalada muqdisho joogtay si ay ugala hadlaan in dhinacooda ay khafiifiyaan jidadku in la mari karo waxay kaloo u tageen dawladda ayay u tageen waxay kaloo u tageen madaxda ciidamada Amisom ayay u tageen waxay intaa ugu tagayeenna waxay ahayd dhibaatadii jidadka xirxiran ee dadka dhibaato weyn ku keentay oo kala ganacsan waayeen in la khafiifiyo ama la wada furo ayay u keeneen marka odayaashu yani isu imaatinkoodu faa'iidada uu dhalay waxa waaye iyagoo wada jira in ay had iyo jeer meeshii ay arrintu la gasho ay uga daba tagaan iyagoo ixtiraamaya had walbaba kooxaha meesha jooga ciday doonaanba ha noqdeen maxamed uunsade wuxuu tilmaamayaa faa'iidooyinka laga dheefay isku imaatanka odayaasha iyo howlaha ay qabtaan fikrada badanaa ka faa'iidaysanay marka hore cabsi waxaan ugu jira dadka markaad u degtiin ama ay bahadal xun niyiraan mas ama ay dagaal binu soo qadan mas ama ay baniyasan waxyaalo badan oo ka cabsi qabnay waa jiri laakiin hadda cabsi kama qabno marka waa isbaran waana isfahan ad saaxiibana marka hore waa laga cabsanayay waxa la dhigay dad aadid ama lagu shaqoola ama lagu waxyeela waxaas waa ka baxnaa هذا وجهي الله يقانا ضدكي الله يقانا حافظيها لقلة برك عمر جديد لما هذيك ولا هذا دافذ على هذا بور بينما أفقوي برك حال أنتوا كيف ما دقنيني حافظها ولا سفير سنة ما أنت الحمد لله حافظها أصفر بين dhibaatooyinka ka jiraan nabadgelyo darro ay wadankii jirto wax badan ay jiraan ummadii wali ay rabtay in la isku soo celiyo ay tahay oo ummadii wali shakiga ku kala jiro aan rabno dadkii badnaayo guryahan adariska ku ahaan jirteen oo waxay inay soo laabtaan si nabada wadankoodii ku dagaan muxuu yahay doorka haweenka ugaada doorka aan ka qaadan karno wuxuu yahay in aan gabar kasta gurigeedii hore ay u degneed ay ka barkacday amba ay ka qaxday ay meel kale ka aaday hadday timaado inaan soo dhaweyno oo gurigeedii si saraaxad ugu soo wareejino inaan tusno kalsoonida degmada ay qabto iyo wixii aan nahay in aan la qabano wax allaala wixii ku soo noqonaya degmadaanita aan soo dhaweynayno oo hadda dad badan loo yimideen oo guryahoodii laga haystay ee nabadaa dhacday guryaheennii aan rabnaa guryahoodii si sharuud la'aan ah inaan dadka uga saarnay ay dib guryahooda u dayactirteen ay u degeen degaan ahaan degmada waabir markaan nahay hawshaas farahaan kula jirna ninkii dhaqaalaha aan haysan waxaan hadda diyaar aan u nahay inaan wax iska aruurino gabdhaheena aan wax siino oo ninkaasaan ficilkoo asaga ku jira isla mar ahaantaas aan kaga reebi karno beeskoo asaga hadda taagan inaan hoos ugu soo dejinaan diyaar u nahay isbedel weyn waxaan u dareemaynaa hadda daafeed haddii oo wax dhacaan oo nin heer xamar ah iyo dad kale isdagaan halkaan teleefonka dira war odaygii hebel ah liigu yeeran leh teleefonkiisaan haystaa war dhegeyso hebel baan ahay beritaan soo socda saacadaasaan imaanaya google hala dhigo horta ma dhihi karin ninkii maqaan yaan u lehay yaana google ii dhigaya teleefon yaan u diraya haddaan aadan yaan qaabilaya aqoon buu guuliye maanta aqoonan u leh oo baydhabaan teleefon u diraya oo gaalkacyaan u diri karaa oo hargeysaan u diri karaya hore ma jirin si ay faa'iidooyinkaasi u sii kordhiyaan ogana soo khibrad kororsadaan ayay odayaasha waxay booqdeen odayaasha dhiggooda ee Somaliland hargeysana waa aadnay seminaar aadaan ugu faa'iidaysan intaa jeer marka xataa ilaa boor ma garin waxaan ku soo baranay odayaal oo dhaqmeed ah xiriiraan la yeelanay waxyaalo badan ay isdhaafsanay filim xataa waa laga soo sameeyey marka meeha aadaynay bilxaqiiqa guul weyn ka gaarnay hargeysa runtii odayaalan iska siinaa iska soo baran waana u sheegnay waxaan idinku nimadaan arday inaan idin naqano saad waddankeena u dejiseen yaan idinka rabnaa inaad noo sheegtaa saan u dejino waddankeena hiddaan nahay reer waxaan ka soo baranay
kolley markaan inta nimid wixii oo annaga maskaxda ku soo qaadanay waa u sheegnay annaga golaheenna waa u sheegnay waxyaabaha ugu adagoo ugubkaahoo hadda na soo maray wixii dhimanu waa meeshooda waxyaabaha na soo maray oo ugubkaa waxaa ka mid ah in qof loo dilo wax la yidhaahdo in qof loo dilo isagu waxa uu yahay waa wadaadaa loo dilaa waa askariyaa loo dilaa waa muxuu dhaqanka noocaas dawladda u shaqeeya adiga soo hadda qolo u shaqayn maysid oo kama socotid waxaas aad tahayaa laga yaabaa in lagu dilo mushkilooyinku marka ayagu cidina uma abtirid karto khaasatan mushkilooyinka waa kuwa dastuuri ah sidoodaba oo gala khalad dawladdu ama gelaydo ama laga gelayo kuwana waa kuwa soo jireena oo dhaqan ah oo qabaa'ilka iyo beelaha iyo deegaamada dhexdooda ku jira iyagaasaa kuwana waxay yihiin kuwa dhacdooyinkooda la yaqaan kuwana waxay ku yimaadeen si cusub oo aan la aqoon maalan hadda qaanuun ahaan marka la yidhaa ummadaha caalamka ku nool kuwaa waxay yaqaaniin wax annagu qaanuun u ah oo ay waafaqsan yihiin wax annaga haddii naloo sheego aan la yaabayno laba nima isguursan kartaa ay ka mid tahay dhaqamadaasoo kale wuxuu ego markay soo baxaan waxaa loo fiiriyaa xalaa loo baadigooba barkee barnaamijyada hore lug kuma leh laakiin inta kale mushkilo kasta oo timaad dil ha noqoto dhac ha noqoto kufsi iyo boob ha noqoto aflagaada ha noqoto hanti iyo milkiyad iyo wax laysku sheeganaayo qaabka markaas ay u jirto ayaa waddada ay mari karto la marsiiya waxaa sidaasay tahay weli lala daala dhacsan yahay laxaajoodka dadka la haybsooco sida uu tilmaamayo daahir xasan faarax oo ka mid ah oday dhaqameedyada dadka beesha shanaad waana la yeesi jiray waana la dili jiray xaqiyagaana loo deedi jiray dhibaatooyinka waa la dagaalami jirnay annakana waxaan dili jirnay annana waana la dili jiray waase nalka badnaay hada jir waana laka xoog badnaay laakiin adigu intii dawladnimada la gaaray xoogaa oo ilbaxnimadu soo fiiday waxbaa soo kordheeyay war haloo kaasho dadle iyo dadle war naga daawo boonta iyo midgaha iyo qurunka halalaayo labaduba waa jireen hase yeeshee adigu wixii waa soo karaayaan hadda naftiga meeshii hore ma joogto laakiin dhibkii weli waa jira dad badan baa weli ixtiraafsan oo aan ogoleyn dadkan in la xoreeyo oo la ogolaado oo la guursado oo xataa gabdhaha in la guursado u diidan yacni beesha awal beel ahaan iyo dad iyo noloma oqoonsanayn yacni hadda waxaa yimid beesha shaqaad waa aqoonsi weeye wax badan baa naga maqal annaguna waxaan garanay marka inaan beesha shanaad hadda qaadanno oo ogolaanno waaba iyaba kama daraysay marba haddii beel ahaanba lagu aqoonsaday waxaa kaloo naga badanna tartiib aan u raadsanno balse isutagga odayaasha waxay anfac u keeneen arrintan iyadoo lagu dadaalay in sumcadda dadka la haybsooco kor loo qaado waa kan cabdikariin ibraahim ibrow mar waxaa jirtay ninka hadduu madhawaanya inuu qarsado midgaan dila inuu qarsado midgaan ula qarsan jiray laakiin maanta anuu midgaan uu kuley sababta inaad waxba dheereen buu ogaaday anigana waa ictiraafnay inaan waxba aan dheereen xagga diineen walaala kanay aakhire ninkii ilaahay wuxuu shaqaysto la tagaa ninkaas horta odayaasha waxay ku adkaysteen inay howlahooda ku wajahan nabadaynta dalka iyo dadka Soomaaliyeed sii wadaan taasoo xilligan aad loogu baahi qabo waxayna adeegsadaan suugaanta la yaqaano sida gabayada ummadoo kale maana isku meel la ujeeda haddii xaajo muhiima muftaaxeeda la waayo macluumaadka adduunka iyo meertada la dayaa meel fog baa la dhugtaa ruuxna ruux kama maarmo mar haddii la ismaagana mar baa la iscafiyaa ma dhamaato colaadoo maqashaada dhex taaliya ma ilowdo dan maahan qalbi meel ku adkayso badaqeydka horseediya maslaxooyinka diidana mar rastuu salfadaa dagaal maatada weeqana makaanku dumiyaa dal masiibo ku raagtana muskaa loogu jiraa hadal aad u macaaniya mowqifaan soconayna mooye suu noqon doonee soomaalaay dan muhiim iyo haddaad waana maqlaysid wax maamuusan lahayn oo magacoodu ku raaciyay maal gargaar lagu sheego meelna kugu filnay inta aad mahayo iyo meeyay ku jirtaan mugdibaad hurdaano marka qud lagu keenaya maquunaad sugataano madaalkii idin siiyad magantiisa tihiin waa man sheegad sheeyaha mihintoodiya beerta waad ka maarmi kartaan dad yahu maas maqashaan oo idinkoo isku maan oo isku mowqif ku taagin mawlahay barida
maanta waxaan u jeednaa Soomaali in ay rabin dib dambe inay u noqoto in ay rabto inay kacdo in Soomaali maanta caalamka la tartanto nabadda maanta Soomaaliya ay ku jirto wax la qiyaas kara maaha haween 6 saac 7 saac aad ku lugeynaysaa ilaa xaafidda tagaysaa wax la ma jirto maalin cad ma socon karin maalin cad ma socon karin adduunka meel aan ka dhicin ma jiro ma aha Soomaali mid ku goobe waa nagala horeeyay anaga magiste marka adduunka meel aan maanta ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in Soomaali ay naqato aclaa Soomaali waa sama ahajirti insan may naqati in laga sheekeeyo insha Allah taariikhiin iyo barwaaqada nimcalagu qabooba itanaasimaano laga jabo nafaqada naxariista eebaay niyadana u roone naftayda ku jecelo raja aan nusqaamayn kugu naawilaysi معاني نعود